salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalkeena youtube-ka xanta wararka waxaa kusoo dhawaataan barnaamij wareedkeena qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ugu mudan saaxiibayaal agaasimaha nise mahad salaad oo weeraray hoyga magaalada caasimadda ee muqdisho oo ka degan yahay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo xilli muddo saacada ay hakad uu ku jiro shaqada garoonka diyaaradaha aadan cabdulle usmaan iyadoo halkaas laga soo warinayo isku dhacyo ciidan iyo khasaare ka dhashay saaxiibayaal waa idiin soo gudbin doonaa barnaamij wareedkeena ayaad ku daawan doontaan sidoo kale kooxda damuljadiid oo golaha wasiirada boobtayna waa idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal waxaa kaloo barnaamij wareedkeena aad ku daawan doontaan intuu hawada ku jira saaxiibayaal hadduu eebaweyne kala noqdo si ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre oo is-casilay saaxiibayaal xoog ayaan kaga helnaa maxay taas ujeedada waqti xaadirkan kusoo beegtay silsiladiisa boobitaanka golaha wasiirada magacaabisteeda ee xubnaha kooxda damuljadiid miya mise waa sababo kale barnaamij wareedkeena ayaan kugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal qodobadaas iyo qodobo kale oo idin qariyana ayaad ku daawan doontaan halkani waa janaalkeena youtube-ka xanta wararka haddii ay tahay markii kugu horeysay kusoo gaara daawada waxaan kaa codsanaynaa subscribe janaalkeena sidoo kale gambeelka furo si wararka warbixinada wareysiyada aan usoo dhignay ay kuu soo gaaraan haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaskaas waxaa naga xasuusinaa muuqaalkan shir alexar qaybta hoos aragtaada noogu reeb waa inoo muhiim daawada si asxaab wanaagsan odag oo kale aanu helno mahadsanid ayaan ku leenahay aan ku bilowno agaasimaha hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed nisa ee dhowaan uu magacaabay madaxweynaha tobanaad ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo ciidamo hogaaminayo ayaa duulaan ku qaaday maanta hoyga magaalada caasimadda ah muqdisho oo ka degan yahay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo madaxweynaha qaranka oo degan agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cabdulle usmaan aadan cadde ayaa waxaa mar qura ilaaladiisu ay ka warheleen duulaan ciidamada nisa oo hogaamiya mahad salaad ay kusoo qaadeen hoyga uu ka degan yahay maxamed cabdilaahi farmaajo agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cabdulle usmaan isku dhacyo ciidan ayaa halkaasi ka dhashay kadibse dagaal saacado qaatay oo sababay isku socodka wadada iyo garoonka diyaaradaha aadan cabdulle usmaan inuu hakad galo ayaa ugu dambeyn waxaa lasoo warinayaa in ku dhow 10 qofood ay ku geeriyootay halka in ka badan oo kale oo ciidamada labada dhinac ah ay ku dhaawacmeen waxaa sidoo kale wararku ay sii tibaaxayaan inuu nabad qabo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo aysan jirin khasaare aada u xoogan oo kasoo gaaray amba nafsad ahaantiisa dhibaato kasoo gaartay weerarkaasi balse mahad salaad ayaana marnaba ka gamban isagoo duulaankan hogaaminayase banaankana soo dhigay in uu duulaankan isaga hogaaminaya si kasta haatee madaxweynaha dalka ayaa ka maqan gudaha isagoo ku sugan dalka masar gaar ahaan magaalada qaahira balse mahad ayaa saacadihii ugu dambeeyay duulaano ku dhaqaaqayo taas oo lagu micneeyey inay si aadaha isaga warhayaan xasan sheekh maxamuud iyo mahad salaad qorshahan ay yihiin wax labadood ay kasoo wada shaqeeyeen ayna isla ogyihiin daawadayaal si kasta haatee madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo warbaahinta maxalliga ah kula hadlay hoygiisa shirjiraadna ugu qabtay ayaa faahfaahiyey dhacdada sida ku dhacday iyo duulaanka lagu soo qaaday waxaynu ku micneeyeen iskuday dil ay soo qorsheeyeen kooxda damuljadiid kuna soo weerareen hoyga oo ka degan yahay magaalada caasimadda ee muqdisho wuxuuna sheegay inuu iska caabiyo sidoo kalena lamaha sharciga oo la tiigsan doono sidoo kalena saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ku dacweyn doono tilaabooyinka guracan ay qaadayaan kooxda damuljadiid taasoo ku aadan weerarada aan gambashada lahayn ay ku qaadayaan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo oo degan agagaarka garoonka diyaaradaha aadan cabdulle usmaan si kasta haatee waxaa si aada u hakatay ama saameyn ku yeelatay shaqaaqada ka dhacday garoonka diyaaradaha aadan cabdulle usmaan agagaarkeeda amba dhabaha garoonka dhinaca bidix ka mara taas oo sababtay guud ahaanba ay hakad gasho maanta isku socodka garoonka diyaaradihii soo degi lahaa iyo sidoo kale diyaaradihii qaaska keeni lahaa si kasta haatee diyaaradaha qaar ayaa kaga biyadiiday tilaabadan waxaana sheegay inaysan caga dhigin karin Soomaaliya maadaama xaalad halis ah ay ka jirto dagaalan ay ka socdaan agagaarka garoonka khasaarana ay kasoo gaari karto haddii rasaas hawow ah ay ugu imaado garoonka diyaaradaha aadan cabdulle usmaan dhexdiisa si kasta haatee si aad ah ayaa loo hadalhayaa saacadihii ugu dambeeyay duulaankan ee lagu qaaday madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo taas oo aan gamasho lahayn
waana duulaan daaha ka qaadan daawadayaal. weli waxaad daawanaysaan barnaamij wareedkeena, halkani waa janalkeena youtube-ka xanta wararka. haddii ay tahay markii kugu horeysay kusoo gaara daawada, waxaan kaa codsanaynaa subscribe janalkeena, sidoo kale gambeelka furo si wararka, warbixinada, wareysiyada aan usoo dhignay kuusoo gaaraan. haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena qaaskasta, waxaan naga xasuusinaa muuqaalkan share alexar qaybta hoose aragtidaadana ugu reeb. waynoo muhiim daawade mahada sanide. aan ku bilownay, waxaa la filayay in maanta ay Qaahiro ku kulmaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa Masar Cabdilfataax al-Siisi. dhinaca kalese iyaga oo ka wada hadli doona xiriirka labada wadan. sida xanta wararka ee xogtan ku heshay, xasan sheekh maxamuud ayaa Cabdilfataax al-Siisi la saxiixan doono heshiis bog cusub loogu furayo cilaaqaadka Soomaaliya iyo Masar oo aad u xumaa xilligii hore. Cabdilfataax al-Siisi ayaana aad u raadinaya xiriir dhow oo la yeesho Soomaaliya, maadaama uu ku taalo meel istiraatijiyadeed ah oo gobolka Geeska Afrika muhiim u ahi, isla markaana ay suurtagal tahay inay saldhig militari ka furtaan. Masar oo ah dalka ugu quwadda weyn Jaamacadda Carabta ayaa waxaa xiriir xun uu kala dhexeeya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dowladiisu la safatay Itoobiya oo aad ugu maran yihiin biyo xireenka webiga Nile ee Geetis. Abiy Axmed Cali ayaana xiriir xun kala dhexeeya Cabdilfataax al-Siisi, taasoo keeni karta inuu baajiyo kulankan uu la yeelan lahaa xasan sheekh maxamuud, maadaama safarkiisa ku marmariyay magaalada Qaahira. Masar ayaana taageero kala duwan siisa Soomaaliya, waxaana dhinaca kala jirin baloolanka siyaasadda juquraafi ah ama geopolitical competition oo ka socda gobolka Geeska Afrika. Soomaaliya oo 30 sano colaad ku soo jirtay ayaa ku dhex luntay dalalka ishaya adduunka, iyadoo la ogyahay in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Qatar darteed u jaray xiriirka Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya oo ah saaxiibo soo jireen ahi oo dalka garab taagnaa intii uu dagaalka ku jiray. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xiriirkiisa dibadda ma fiicna, wuxuuna kala saaxiib ka dhigtay Qatar, Itoobiya, Eritrea oo ahi dalal aan wax dan ahi ugu lahayn Soomaaliya oo keliya ka shaqeeya maslaxadooda. xasan sheekh maxamuud ayaana ololaha doorashada ku soo galay Soomaaliya oo heshiis ah, dunidana heshiis la ah, taas oo aan ogeyn inuu hirgeli doono iyo in ay qaadi doonto mowjadaha socda ee siyaasadda, taas oo iscarbinayso marba dhinacna usii jihaysanayso. si kasto ha ahaatee, si aad ah ayaa loo hadalhayaa, taasoo ahi waxaa ugu weyn ee laga baqaya saaxiibayaal. dhinaca kale, ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa booliiska ayaa howlgallo ka sameeyay xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho, kuwaasoo lagu xaqiijinayo amniga si looga hortago falalka amni darrada ahi. howlgalladan oo ahaa kuwa qorsheysan ayaa si gaar ah loogu fuliyay xaafado ka tirsan degmada Kaaraan oo ka mid ah meelaha u daran marka laga hadlayo amniga Muqdisho. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdilfataax Aadan Xasan oo u waramayay warbaahinta kadib markuu soo dhamaaday howlgalka ayaa ka warbixiyay siday wax u dhaceen, waxaana ujeedka uu ku sheegay sidii looga hortagi lahaa kooxaha dhibta ku haya dadkani. Cabdilfataax Aadan Xasan ayaana shaaca ka qaaday in ay ciidamada gacanta ku soo dhigeen ilaa 74 ka mid ah kooxaha ciyaalweerada kuwaasoo dhibaato ku hayay dadka reer Kaaraan. sidoo kale afhayeenka ayaa xusay in 50 mindi ay raahdeen oo ay ku jiraan kuwa casri ah oo aan hore dalka loogu arag ay ku soo qabteen howlgallada kuwaas oo ka dhici jiray shacabka Soomaaliyeed. waxaa kaloo intaasi ku sii daray guri uu deganaa nin uu sheegay inuu ka caban jiray amni darrada ay ka soo qabteen tuutaha ciidanka, kaas oo tilmaamay in lagu geeyay jiray falal amni darro maadaama uusan askari deganeyn hoyga laga soo qabtay dharkaasi. ugu dambeyntii, afhayeenka ayaana ugu baaqay shacabka ku dhaqan caasimadda inay ka wada shaqeyn doonaan la shaqeeyaan laamaha ammaanka ee ku howlan amba ka wada howlgallada gobolka Banaadir. si kasta ha ahaatee, ciyaalweeradu waa waxa ugu badan ee saacadihii ama bilihii ugu dambeeyay si aad ah dadka ku nool waqooyiga iyo bartamaha magaalada caasimadda ee Muqdisho si aad ah ay kaga caawinayeen daawadayaal. guud ahaan waanagi inta barnaamij wareedkeena aad ka daawanayseen janaalkeena YouTube iyo xanta wararka. haddii ay tahay markii kugu horeysay kusoo gaaray daawada, waxaan kaa codsanaynaa subscribe janaalkeena, sidoo kale gambeelka furo si wararka, warbixinada, wareysiyada aan usoo dhignay ay kuusoo gaaraan. haddii aad ka mid tahay saaxiibadana qaaskasi, waxaan naga xasuusinaa muuqaalkan share like saar qaybta hoose aragtidaada noogu reeb.
waa inoo muhiim daawada si asxaab wanaagsan oo digoo kale aan u helno waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan sidaas iyo ammaan Allah nabadgelyo daawadayaal